kulan wacan oo wanaagsan dhammaan akhyaartan ugu xiran Haga Media ayaad naga daawanaysaan kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay gudaha dalka iyo dibaddaba. Inta badan wararkeena waxaan diiradda ku saari doonaa xaaladihii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho. Madaxweyne Farmaajo xalay wuxuu ku dhawaaqay in shaqo ka joojin uu ku sameeyay wasiirka koowaad ee dalka. Isla xalay waxa uu dul dhigay ciidamo fara badan xafiiska ra'iisul wasaaraha, iyadoo ra'iisul wasaaraha ciidan u soo gurmadayna ay isku dayayaan in xafiiskoodii ay dib ula wareegaan. wararkii ugu dambeeyay ee sida ay wax u socdaan ayaad halkan kaga bogan doontaa haddii ay tahay markii ugu horeysay oo channelkan aad soo booqatay nagu soo biir subscribe saar gambaleelka furo like share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebto hanaga ilaabin. aynu ka horeyne madaxweynaha madaxweyneedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xalay waxa uu soo saaray wareegto dad badan ka yaabisay. laba wareegto ayuu soo saaray madaxweynaha. labada wareegtona waxa ay kala yihiin mid ku socotay taliyaha ciidanka badda oo shaqo joojin in lagu sameeyo uu amray, iyo mid ku socotay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo isagu ku dhawaaqay in shaqo joojin uu ku sameeyay kadib markii xatooyo dhul iyo waxyaabo la mid ah uu lagu eedeeyay sida madaxweynaha hadalka uu dhigay. haddaba wareegtadaas ka soo baxday xafiiska madaxweynaha waxaa dad badan ay ku fasireen in ismiidaamintii siyaasadeed ee ugu dambeysay ee madaxweyne Farmaajo uu ku dhaqaaqo ay tahay, waxaana dadku ay u arkaan in madaxweyne Farmaajo aysan u harsaneen waddo kale oo uu ku sii hogaamiyo dalka, isla markaana qalalaase walba oo ka dhaca dalka madaxweyne Farmaajo mas'uuliyadda uu qaadi doono. waxaan eegi doonaa ra'iisul wasaaraha xafiiskiisa madaxweyne Farmaajo ayaa ciidan dul dhigay, maxaa ka soo kordhay, ciidamada ra'iisul wasaaraha si xakii ku sugan yihiin, ma laga yaabaa in madaxtooyada Soomaaliya gudaheeda dagaal uu ka qarxo, wadooyinka soo gala madaxtooyada oo carrakaabo lagu gooyay yaa ka dambeeya falkaas waan eegi doonaa. laakiin Roble wuxuu si adag uga hadlay warqadii xalay ka soo baxday xafiiska madaxweynaha ee uu ku sheegay in shaqo joojin uu ku sameeyay ra'iisul wasaaraha. qoraalka xafiiska ra'iisul wasaaraha ka soo baxay ayaa waxa uu kaga hadlay shaqo joojintii xalay lagu sameeyay, waxaana uu yiri warka ka soo baxay madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee quseeya shaqada ra'iisul wasaaraha iyo isku daygiisii inuu ciidan kula wareego xafiiska ra'iisul wasaaraha waa tallaabooyin baalmarsan dastuurka iyo sharciyada dalka. mas'uuliyadda wixii ka dhashaa waxaa qaadaya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. ra'iisul wasaaraha waxa uu sidii caadiga ahayd u wataa shaqo maalmeedkiisii, waxaana ka go'an inuusan cidna uga haybeysan gudashada waajibaadkiisa qaran si uu dalka u gaarsiiyo doorasho horseeda in awoodda lagula kala wareego si nabad ah. haddaba ra'iisul wasaare Roble maadaama uu hadalkaas yiri oo ciyaartu ay weli u muuqato inay aad u kulushahay, waxa ay ku soo beegantay go'aanka uu qaatay Farmaajo oo la wada filanayay xilli dhammaan beesha caalamku ay taageereen shirka uu ballan qaaday inuu qabanayo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ee madaxda maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir lagu casuumay. maamul goboleedka kaliya ilaa haatan diiday waa maamulka Koonfur Galbeed, iyadoo Galmudug iyo Hirshabelle mowqifkooda aysan cadeen. laakiin wax walba waxay ka sii dareen markii saakay magaalada Muqdisho wadooyinka soo gala villa Soomaaliya madaxweyne Farmaajo uu amray in carrar lagu gooyo, carrakaab ayaana lagu gooyay. madaxtooyada Soomaaliya ayaa xaalad adag wajahaysa, waxaana meesha ka muuqata inay marba marka ka dambeyso quus taagan yihiin dadka in xal laga helo. waxaa hadda muuqanaysa in marba marka ka dambeysa xaaladdu ay meel cakiran gaarayso, isla markaana sida dadku ay aaminsan yihiin haddii isbeddel uusan imaan magaalada Muqdisho dagaal aysan ka baaqsanin. warar lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinaya in madaxweyne Farmaajo uu aad u danaynayo in culayskiisa ugu badan uu isugu geeyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo markaasi uu doonayo inuu ka taqaluso ra'iisul wasaare kale in mucaaradka uu ka keeno, mucaaradka uu soo dhaweysto 2 sano uu xafiiska iska sii joogo, taasi oo mucaaradka qaarkood ay danaynayaan laakiin intooda badan way ka soo horjeedaan mucaaradka. marka la fiiriyo xaaladda guud ee hadda rajada labada mas'uul ay kala qabaan, ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble taageerada beesha caalamka iyo taageerada ciidanka iyo taageerada dadka reer Muqdisho ayuu heli karaa, halka madaxweyne Farmaajo uu taageero ka heli karo oo kaliya qaar ka mid ah saaxiibadiisa sida Fahad Yaasiin, Farxaan Qaroole, taliya Xijaar iyo taliyaasha la midka ah. ra'iisul wasaare Roble maxaa cadaadiskan ku keenay? shalay wuxuu kala bedelay oo xilka qaadis uu ku sameeyay isla markaana xilalkoodii u kala wareejiyay
wasiirkii gaashaandhigga iyo wasiirkii cadaaladda. wasiirkii gaashaandhigga in meesha laga qaado madaxweyne farmaajo dhabarjab weyn ayay u tahay marka xaqiiqda laga hadlo, waxaana ay ku soo aaday xilli lafta gareen uu qaaday tallaabo la xiriirta in ra'iisul wasaaraha amar diido uu ku sameeyey oo xagga villa Soomaaliya uu la saftay. wasiirka gaashaandhigga waa nin ka soo jeeda ama ka soo jeedayba xagga iyo koonfur galbeed, midka hadda loo dhiibayna waa nin ka soo jeeda koonfur galbeed, laakiin labada shaqsiba waa labada shaqsi oo hadda u kala dhow marka loo fiiriyo xagga villa Soomaaliya iyo weliba xagga ra'iisul wasaaraha. haddaba maxaa socda marka baraha bulshada markaad fiiriso, dadka reer muqdisho kuwooda siyaasiyiinta ah, aqoon-yahanada, dhalinyarada intooda badan waxay leeyihiin madaxweyne farmaajo xoog aan isaga saarno. waxay leeyihiin madaxweyne farmaajo uma sii dulqaadan karno, ilaa aan meel uga soo harnana suuragal ma aha in loo sii dulqaato. sidoo kale waxaa jirta siyaasiyiin iyagoo arrintan si kulul uga hadlay oo leh war xaaladda haddii sidan ay kusii socoto maxamed cabdullaahi farmaajo oo laga sii aamuso wax kale ayuu keeni doonaa. marka waxaan ku talinaynaa ay leeyihiin in arrinta weji kale loo yeelo, isla markaana aan dalbanayno in ugu yaraan xaalka uu noqdo mid ka duwan midka hadda lagu guda jiro. waxay soo jeedinayaan qaarkood in dagaal lala galo madaxweyne farmaajo, ciddii dhimanaysa ha dhimato, hantida burburaysa ha burburto, laakiin in culayskiisa la iska dul qaada ay qasab tahay. siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa qoraal uu soo saaray wuxuu ku yiri farmaajo dowladnimo uma turin, dastuurna ma dhowrin, guud ahaan Soomaalida gaar ahaan dadka deegaankana waxba uma hambayn. xadgudubyadiisii way isdaba yaaleen laga soo bilaabo weerarkii 17 December ee xarunta xisbiga Wadajir, shirqoolkii lagu dilay allaha u naxariistay injineer Yariisow, weerarkii uu 19 February ku qaaday madaxweynayaashii hore, rasaastii isla maalinka lala dhacay madaxdii iyo shacabkii mudaaharaadayay, qaarijintii Ikraan Tahliil, iyo maanta oo ra'iisul wasaaruhu madaxiisa haysto. farmaajo nin garasho leh maaha, nin gar qaata maaha, nin sharci, dastuur iyo akhlaaq leh maaha, nacas iyo nin liita dabadhilif keliya ayuu rabaa. waa inaan iska qabanaa shacab, siyaasi, oday, aqoon-yahan, haween, dhalinyaro iyo ciidan. waa in marka hore dabadhilifka iyo calooshiis u shaqaystayaasha ka soo horeeya iska qabanaa, kadibna iska bixinaa. dhammaanteen xafiiska Rooble ayaa inoo balan ah. hadalka ra'iisul wasaaraha markaad eegto, hadalka cabdiraxmaan cabdishakuur markaad eegto, waxaa kusoo baxaysa in markaasi uu dhiirigelinayo in dagaal lagu galo villada xafiiska ra'iisul wasaaraha dib loo soo celiyo. laakiin xogaha waxay tilmaamayaan ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha sidaan ogsoonnahay amisom ayaa ka mas-uul ah, ilaahay ayaa ka mas-uul ah amnigoodii, amisom ayaa qaabilsan. ra'iisul wasaaraha maadaama ciidamo isku dhafa uu haysto oo Soomaali iyo amisom ah, waxaa la sheegay inay yimaadeen goobtii markaasi ra'iisul wasaaraha xafiiskiisa ahayd, ayna u sheegeen ciidamadii koofiya casta ahayd ee halkaas la duldhigay in markaasi meesha ay isaga tagaan. ra'iisul wasaare maxamed xuseen Rooble ayaa loo arkaa in shaqadiisa caadiga uu wato. wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta cabdiraxmaan yuusuf shaq al cadaala oo saaxiib dhow la ah ra'iisul wasaare maxamed xuseen Rooble wuxuu yiri waxaa fashilmay afgambi uu damacsanaa madaxweyne farmaajo. dadka siyaasadda indheindheeya ee madaxweyne farmaajo dhaliilsan siyaasadiisa waxa ay leeyihiin guud ahaan markaad fiiriso madaxweyne farmaajo isaga ayaa istoogtay. madaxweyne farmaajo isaga ayaa istoogtay, welina wuu isii toogan doonaa. yaan la sii sugin inta uu istooganayo ee gacan bir ah lagu qabto. sidoo kale ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Guuleed wuxuu cadeeyay mowqifkiisa kadib aamusnaan dheer oo uu ka aamusnaa xaaladan cakiran. waxa uu soo qoray qoraal kooban oo uu ku leeyahay anigu waxaan ahay tabliiq nabadeed, waxaana ugu baaqayaa madaxda dalka inay u turaan dalka, waxaana uu dalbaday in waan lagu dhameeyo xaaladda. sidoo kale mas-uuliyiin kala duwan ayaa la filayaa in mowqifkooda ay cadeeyaan sida Cabdi Xaashi Cabdullaahi. shalay ama daraad waxaa cadeeyay mowqifkiisa Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, gudoomiyihii golaha shacabka. odayaal badan ayaa aamusan sida Muuse Suudi Yalaxow iyo weliba xildhibaano horey xilal usoo qabtay oo beesha hawiye kasoo jeeda iyo kuwo kale oo markaasi kasoo jeeda beelaha kale ee daarood iyo beelaha la midka ah. marka aad fiirisana aad iyo aad waxaa usii dhimanaysa rajada laga qabo in xilligan marba marka ka dambeysa
wada hadal ay galaan madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. xaaladda magaalada Muqdisho guux ayaa jira, waxaa suuragal ah haddii aysan waxba isbedelin saacadaha soo socda in wax walba ay dagaal isku bedelaan. wixii kusoo kordha halkan ayaan kuugu soo gudbin doonaa. haddii ay tahay markii ugu horeyso channelka inaad soo booqatay, subscribe dheh, gambaleelka furo, like, share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebto hanaga ilaabin. mar kasta iyo meel kastoo aad joogtana waan kaga mahad celinaynaa sida dhiirigelinta aad inoogu samaynayso. Haga Media ka dhigo saaxiibka koowaad ee xaqiiqda aad ka xiganayso.